أحبابتا iyo saadaadka aan jecelnahayo halka aan galabta sida tooska aan kala soo hadlayno waa xarunta degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkan waxa kordhow lagu soo gabagabeeyay banaanbaxa siyaaradii Allah u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdiraxmaan oo Cumar oo ku magac dheer Sheekh Cabdi Cali oo sanad kasta xilligan oo kale loo qabtay siyaaradiisa halkan banaanbaxa galabta waxaa ka soo qayb galay kumanaan xir ah oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee durqa suufiya sida dariiqada Ahmadiyya kaaraan Raxmaaniya sidoo kale dariiqada Qaadiriya kaaraan Uweysi iyo Seeliciya sidoo kale dariiqada Rufaaciya صلاة خيرا وتدفعين دنا الليرات وتبعدنا من النيران في داري نيا وعلا وصلاة تجذب الخيرات وتدفع عندنا الليرات وتبعدنا من النيران في داري نيا وعلا هذا الرفاع رفاعي لك هبير هذا الرفاع رفاعي لك هبير غوصل معا هذا ما ولا فقير يا سيدي غوصل معا هذا ما ولا فقير ذو القدر banaanbaxa inta uu socday waxaynu la hadalnay qaar ka mid ah mashaayiqdii ka soo qayb gashay siyaarada iyagoona ka sheekeeyay wanaagii Allah u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdiraxmaan oo Cumar oo ku magac dheeraa Sheekh Cabdi Cali Sheekh Cabdi Cumar banaanbixiisa ziyaartiisi waaye sida arkaysaan intaan oo qalqi ah isugu timid alxamdulillah waxaa yacni taqaanaa nooga soo qayb galay وشرف إنه شيخين صاحب سجادة القادرية marka madaxweynta qaadiliyadani waa joogtaa cid maqan ma laha alxamdulilah ziyaarta maqbuul allah nooga dhigo ziyaarada allah naga aqbalo shidada allah nooga qaado fadligeeda
dalkeenana nabad caam ah allah nagu siiyo xaajaadkeena allah suubiyo ziyaarta inta ka soo qayb gashan allah ka aqbalo maanta waa maalin weyn waxaan joognaa barnaamijii weynaa oo sayidina sheekh cabdi cumar alcaliyi alqaadiriyi shaykh mashaayikhina mashaayikhdeena sheekhooda sayidina sheekh cabdiraxmaan ibni cumar alcaliyi alqaadiriyi alwarshiiqiyi yaan joognaa galabta barnaamijhiisii weeye ziyaaradii weynayd weeye oo laga soo wada qayb galay ahlu sunna waljamaaca ahlu duruq suufiya ay ka soo qayb galeen anwaacdooda iyo asnaaftoodoo dhan innagana alxamdulilaah waxaannu ka mid nahay dadka ka soo qayb galay ilaahay baannu ku xamdinaynaa taas waa nimco ilaahay nicmooyinkiisa ka mid ah waa minno waafajinteeda ilaahay baa iskale ilaahay baana waafajiyey dhab ahaantii sheekh cabdi cumar iyo sheekh maxamed sheekh cabdina waa mudan yihiin in maaragta saan oo kale loo tacdiimiyo oo loogu xafladeeyo oo maaragta la isugu imaado oo taariikhdooda laga hadlo oo laga sheekeeyo shamaa'ishooda iyo awsaaftooda iyo siiradooda laga hadlo si loogu daydo oo muslimiintu ay ugu daydaan dadkii aan la zamantamin oo maaragtay si ay u ogaadaan mashaayikhda sha'nigooda iyo sida diinta ay u fidiyeen iyo waxay qabteen iyo taariikhdooda iyo turaadkooda iyo ta'aaliiftooda marka in maaragtay la weyneeyo weeye oo la isugu imaado oo laga taariikheeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka dhexdiisa uga hadlay oo uga taariikheeyey ambiyadii ilaahay iyo saalixiintii buu ilaahay ka hadlay naxnu naqusu calayka min anbaa'i rusul maa nuhabbitu bihi fu'aadak qisastu waxa weeye waxay faa'iideeyaan tahbiit alfu'aad waxay faa'iideeyaan tuma'niinatu alquluub waxay maaragtay laga helaa khayr oo dhan iyo faa'iidoo dhan baa laga helaa maanta marka waa maalin weyn oo aad u weynin badan oo aad u sharaf badan marka waxaan leenahay ziyaarada allaha naga aqbalo mashaa'ikhda iyo saadadana allaha u naxariisto in sha allah ilaahayna noogama dhigo ziyaaradii ugu dambaysa ilaahay noogama dhigo in sha allah wayna salaamayaa dhammaan labada sheekh ee waalidka isu ah oo mid kasta oo ka mid ah dhammaan anuka waalidkayna uu yahay oo diinta uu noogu yahay haddii aad fiiriso mashaa'ikhdaas ilaahay qadarka agtiisa ay ku leeyihiin waxaa tilmaamayaa mowqifka aan taagannahay oo hadda 42 sano ayaa laga joogaa sheekhayni waa ziyaaradii 41 waxa la dhigaayo sheekhayni sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar marka hal sana kulay dabcan waa ka sii horeeyay geeridiis waa ka sii horeysay ziyaarada dil soo dashay 41 ay tahay intaas ayaa ahbaabtii halkaan joogto qof ul lagu keenay iyo qof qasab lagu keenay ma jiraan waxaan ilaahay sheekha umrigiisa dhamaantiis wuxuu u hibeeyay diinta inuu barahaayo iyo inuu baraayo dadka inuu nasiixaynayo inuu hanuuninayo inuu dariiqada faafinayo sheekhaas ayaa iska taariikhiyay asaa iska tarjumeeyay marka mashaayikhdiisii haddii macalinkiisa ahaa laheeday haddii kutubta u akhrisay ahaa laheed kulle sheekh waa maxfuud alxamdulillah waa noo qoran yihiin waxaan ilaahay ku mahad celinaynaa marka in ilaahay uuna soo waafajiyey sheekha ziyaaradiisa sheekhaas oo dhulkan ku nuuriyey cilmiga cirfaanta dhammaan dalka Soomaaliya iyo dibadda laga qaaday culumta islaamka laga bartay oo cilmi naafic faafiyey asiga iyo wiilkiisii oo sheekhayni oo soo gaarnaa sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan labada alxamdulillah waa la kulmay ilaahan ku mahadinayaa abu sheekh cabdiraxmaan waa la kulmay 70kii iyo 9kii ilaa 80kii iyo 80kii lamadii sidoo kale abu sheekh maxamed xadaradiisa ayaan balaazimaynay wax badan khutubaa ka wada akhrisanay maanta oo taariikhda 11 ay tahay ayaantana ay tahay khamiis waxaan ka qayb galay dhammaan rifaaciyada muqdisho ziyaarada sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi cumar aan ka qayb galnay waxaan rajaynaynaa ziyaarteeda inuu ilaahay nagu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo waa u dhannahay rifaaciyada dhammaan asharaafta dhammaan heer muqdisho waan u dhannahay waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noogu dambi dhaafo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alle ha u naxariistay sheekh cabdiraxmaan oo cumar oo ku magac dheeraa sheekh cabdi cali wuxuu ahaa caalim cumrigiisa ku bixiyey u khidmeenta iyo fidinta diinta islaamka
waxaana ka aflaxay kumanaan xer ah oo ku kala tirsan guud ahaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxaana sanad kasta xilligan oo kale lagu qabtaa siyaaradiisa halkan waxaana ka soo qayb gala kumanaan xer ah oo ka kala socda guud ahaan duruq suufiya saadaam cabdulla siyaad annasiixatu diiniya degmada warshiiq gobolka shabeellaha dhexe